بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم daawada ku soo dhawo barnaamijka qisooyinka nolosha waxaan ku soo qaadanaa maanta qiso aad u layaab badan qisadan daawada waxa ku saabsan tahay nin garsoore ah ayaa waxa uu yiri kiis baa la ii keenay kiiskan muxuu ku saabsanaa nin dhintay oo taajir ahaa ayuu dhaxalkiisa ku saabsanaa ninkan taajirka markuu dhintay ayaa waxa la raadiyay qarabadiiba la waay waxa la waay cid uu dhalay waxa la waay cid dhashay waxa la waay reerkiisii dhammaan cid kasta la waay maxkamadda kiiskii la keenay maxkamaddii baa la yiri baraadi cid ninkan u noqon karta dadkii dhaxli lahaa baraadi oo runtii markaas si dhaxalkiisa loo qaybiyo lacag badanna waa ka tagay ninkii garsooraha maxkamadda haystay ayaa shaqaalihiisii waxay raadiyeen marka recordkii qofkan baa la raadiyay intee saradiisii baa la baaray ehelkiisii qarabadii waxba la raadiyay aakhirkii waxa la soo helay 3 qof oo qaraba yihiin qaraba u dhow maaha qaraba fog ay yihiin 3 qof maxkamadda la keenay garsoorihii baa soo fadhiistay 3 qof waxa ku yiri waryaareen hebel ma garanaysaan waxaan hebel warniyow dawa qaraba waanu nahay laakiin qaraba fog baanu nahay marka waxa uu haystaan hebelkan baa inuu dib sameeyo way ka yara maagayaan inay markiiba yiraahdaan waan in aad ugu sii dhownahay way ka yara maagayaan wuxuu leeyahay ninkaasi qaraba uu ka tagay ma jirto buu yiri xaasi reerna kamuu tagin caruurna kamuu tagin de hantina waa uu ka tagay markaanu baanay recordkiisii baanay 3diina waxaad noqoteen 3 qof ee ugu dhow ayaad noqoteen waxay yiraahdeen waa run waan u dhownay laakiin qaraba fog baanu nahay weliga da xiriir badan naga muu dhaxayno nin xataa noo imaado xafladaha ka soo qayb galo oo nagu xidhana maba ahayn baninkaasi ninkii garsooraaba waxa uu yiri ninka lacag buu ka tagay lacagtu ka tagay dhaxalkiisii baa la rabaa idinka in la idin qaybiyo idinka la idin siiyo idinka qarabada ugu dhow ah idinka la idin siinaya qof kasto idin kamida waxa ku soo hagaagaya ilaa 30 milyan oo dollar ba ala qof ku soo hagaagaysa ala qof maxaa ku soo hagaagaya ugu yaran 30 milyan inta markuu ku yiri nimankii mid kamida koomu gal mid kamida ooyin buu bilaabay mid kamida isku dhaxyaacay garsoore ma arintaasi ma runbad ku sheegaysaa ma anaga dhaxlayna ma lacagtaasan helayna isku dhaxyaacay baash lacagtu waa balaayade waxa la yiri waa farxiso marna way ka farxinaysaa marna way ka oohinaysaa baash waa balaayo kiiba koomada ka soo baxay garsoori baa wuxuu yiri 3diina dhaxalkan iska leh check mid ka salcadkiisu ku qoran tahay iyo gacanta ka gali 3 check marka gacanta ku dhigeen ayuu garsoori dhageysta ninkan aad dhaxlasaan buu yiri kamuu tagin wasiyo dardaaran kamuu tagin buu yiri sidaa daraadeed maadaama lacagta badan uu ka tagay idinkana lacagtan ay bilaash idinku soo gashay waxaan rabaa inaan runtii masaajid u dhisno marka mid kasto idin kamidaba in yaroo lacagtiisa oo badnaynba ayaanu ka jaraynaa inta yar marka hal masjid ayaan ugu dhisaynaa markaas 3 mid kamid wuxuu yiri wallahi niyo aniga caruurtayda badan oo dhibaato ay haysato deema lagu leeyo ma bixin karo kii labaad baa wuxuu yiri wallahi runtii anigu laftigaygu niyo caruurtayda badan oo duruufo iska jira kii saddexaad baa waxa uu yiri garsoore ninkii aan naftiisa anficin markuu noolaa anagu maanta wax tari mayno markuu noolaaba ay naftiisa inuu wax taro anagu maanta wax tari mayno garsoore waa yaabay 3 nin oo lacag bilaash soo gashay oo midkiiba 30 milyan soo galay oo laga baryayo lacag yar masjid lagu dhiso lacagta masjid lagu dhiso imsa noqonaysa hatta 100 ma gaadhis lacag yar weeyaan intuu yahay ku war lacagtan bilaash bay ku soo gashay de ilaahay baa siiyay de madnaka inta oo ogolaataan may bay yiraahdeen 3dooduba albaabka ka baxan iyagoo shilin baxan daawada qisadan maxay tilmaamaysaa qisadan waxay tilmaamaysaa daawada inta aad nooshahay ka faa'iideyso inta aad nooshahay hadii ay ilaahay dhaqaale ku soo galiyay ka faa'iideyso sadaqa jaariya samee ilaahay xaqiisa wax sii marso aakhiro wax sii geyso garan maysid maalinta dhimato dhaxalkaaga caruurtaadu waxay ka yeeli doonto ma garanaysid marka hadda fursad haysatahay ka sii faa'iideyso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.